ayaad maanta ku taagan tahay waxa kuwa qaaqlayaasha iyo kuwa qaylinaya ay kala daba qayliyaan waa intaas marka waxaan ku leenahay ku soco madaxweyne hanaka tanaasuul marnaba wuxuu bulshada ka ballan qaaday jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay madaxweyne hambaliyo waa mahadsan tahay waxaad haydaa wixii bulshada Soomaaliyeed ay ku dirsadeen wixii aad ka ballan qaaday wixii aad ku gashay kaambeynka oo ahaa inaad dalkan gaarsiinayso doorasho qof iyo cod ayaad ku taagan tahay ayaa garbahaada ku taagannahay shacabkan gobolka Banaadir oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan مسؤول لك أنا وكيل كا شعبك Soomaaliyeed oo maadaama meeshaan ay tahay caasimadii madaxweyne wuxuu ku leeyahay hambaliyo waxaad ka dhameysay ballanqaadkaadii kaambeynka aad ku gashay oo aad tiri waxaan idin gaarsiinayaa doorasho qof iyo cod oo dalka aan gaarsiinayaa ayadii ayaad maanta ku taagan tahay waxa kuwa qaaqlayaasha iyo kuwa qaylinaya ay kala daba qayliyaan waa intaas marka waxaan ku leenahay ku soco madaxweyne hanaka tanaasuul marnaba wuxuu bulshada ka ballan qaaday bulshada waxa wareeriyay nin markuu kaambeynka ku jiro waxa bulshada uu sheegay waxa ahayn qabanaya oo wax ka duwan qabanaya marka aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa go'aankaada al-shabaab ku xiraynayo go'aankaada aan caalamka kula xiriirayno waa maalin kasta aan gudaha iska soo daba dhacay aan u jeedno go'aankaada doorasho qof iyo cod inaad qabanaysid go'aankaada in dastuurka aad ka shaqeeyid aad iyo aad ayay dadkan kaaga mahadcelinayaan qodobka labaad wuxuu yahay baarlamaanka federaalka oo wakiilada shacabka ayagana inaan niraahno waa mahadsantihiin maadaama adinka oo fasaxeynay uu taagan yahay waqtigii fasaxeynay intaad dib u dhigateen aad ka hormarideen dantii guud iyo midii aad ugu dhaarateen kitaabka qur-aanka inaad shacabkiina u khidmaynaydiin shuruucda ansixideen oo doorashooyinka in qof iyo cod ugu gaaro horseedaya waa ku mahadsantihiin shacabka halkaan taagana taas ayay rabaan in kaga mahadceliyaan labadaas fariimood ayaa ugu waaweyn in dowladda Soomaaliya oo madaxweyne Xasan Sheekh ugu horeeyo la yiraahdo hambaliyo wuxuu dadka Soomaaliyeed ka ballan qaadeen ku taagantiina ku socda iyo baarlamaanka inaan mahadcelino oo aan niraahno waa mahadsantihiin waxaana muujineen karti iyo dhabaradayd iyo inaad diyaar u tihiin inaad gaarsiidin dalkan doorasho qof iyo cod waxaan rabaa fariinta ugu dambayda halkaan inaan u diro dadka Soomaaliyeed waa ku wareereen musharax ama maaragtay qof raba cod ama xil raba oo dadka Soomaaliyeed intuu kaambeyn u galo oo maaragtay hortooda wax ka sheego waxaasna asagoo hal xabba ka qaban maalinta dambe xilka ka tago maanta waxaan haysanaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo gudoomiye baarlamaan oo diyaar u ah dalkan inay salato bixiyaan wixii ay ka ballan qaadeenna ay fuliyaan garbaha is haysta hal meel ka soo jeeda ilaa mayna 4.5 dambe ilaa mayna dowlad dambe isaf loo galo ilaa mayna xalaqad dambe iyo howl dambe iyo teenda dambe inaan aadno ilaahay danka diyaar mayna doorasho qof iyo cod diyaar mayna doorasho qof iyo cod dowladdeena ma garab taaganahay adinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin gaar ahaan bahda waxbarashada sida ay maanta soo xadireen degmooyinka kala duwan gobolka Banaadir dhammaantiis aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaad markasta bulshada Soomaaliyeed u matashiin oo codkiina ugu matashiin oo wakiilka uga tihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet